لكن أنا حلال هين هذا نوع كسر جديد اقتراح أما suggestion si ay u dhamaato doorashadeenu oo ay noqoto doorasho xor oo xalaal ah in la diiwaan geliyo dadka maxaa yeelay doorashooyinka hore ee soo galay dhamaantood dadku ma ilahayn card ay ku codeeyaan mana jirin register magacdoodu ay ku qoran yihiin oo qof walba halka uu ka codeynayo uu ku yaalo marka waxa dhici karaysay inuu qofku 2 jeer 3 jeer 4 jeer codkii ku noqdo uu codeeyo baarlamaanka jiray hadda waxa ahayd in lagu kala diiwaan gelin iyo ID runtii arrintaas oo ay xusaareed wasaaradda arrimaha gudaha iyo commissionkii markaa joogay suurtagal uma noqon sharcigu say u approve gareysnaa in lagu galo ID iyo diiwaan fusr baarlamaankii hadda jooga waqtiga ku yaraa awgeed buu suurtagal u noqon weeyay inagu ma lihin taariikh hore dadkeenu ma diiwaan gashanaa manay diiwaan gashanayn teesarooyinka aynu lahayn ama xaashiyaha aqoonsigaynu lahaynina qaar habaysan oo lagu kala garan karo qofka doorashada iyo qof kale ma ahayn sidaas darteed sida caalamkuba u dhaqmo waxaa qasab noqotay in diiwaan gelin la sameeyo qofku uu la yimaado kaarkiisii dhalashada iyo kaarkiisii diiwaan gelinta oo markaas ka loo raaco kadibna qof kasta oo da'da gaara in la geliyo database-ka la geliyo oo markaas sida aynu ku saxano in dad liis la yaqaano goob walba uu yaalo oo xaq dadka u leh inay markaa ay isdiiwaan geliyaan halkaas ay taariikhdu isku fadhiday waxaana la soo maray halgan dheer baa loo soo maray in la helo halgan aad u dheer baa loo soo galay goorma la sameeyay xeerka diiwaan gelinta haddii uu jirayse maxaa dib u dhaca keenay xeerka kan diiwaan gelinta loo number 17 diiwaan gelinta cod bixiyaasha horta wuxuu ka yimid xeerka number 20 xeer number 20 xeerkii golaha ayaasha deegaanka iyo madaxtooyada qodobkiisa 14aad xarafkiisa intaan filaya iminka dadka kama hayo ayaa waxa wuxuu qeexayaa in diiwaan gelin la sameeyo before intaan kan bal la sameeyo 5 bilood ka hor doorashada waa xeer markaan ku sheegay inay ahayd baarlamaanka in ma taqaanaa lagu galo diiwaan gelin waxa uu la kowsaday horta diiwaan gelintu la kowsatay xeerku commissionkii hore waqtigiisu dhamaaday marka commissionkii samayskiisii inuu sameeyo commission cusub amba kuwii hore la daayo muddo aad ogeedo lagu murmayay muddo ay qaadatay muddo sanad ku dhadhow bay qaadatay muranka commissionku qaatay commissionkii markii la sameeyay haddana commissionkii wuxuu noqday commission cusub isagana jaanqaadkiisii ayaa oo khilaaf la kowsaday oo isaga gudihiisina khilaaf la kowsaday oo gudihiisii caqabado badan ka hor yimaadeen donorskii lacagta bixinayay asxaabtii waqtigii electionskeenii doorashooyinkii oo qaar expire noqdeen oo tii deegaankii iyo madaxweynihii dhaceen waxaan uun markii hore research laga samayn oo waxa weeyaan markaad hawlgeliso inaad macluumaad fiican ka haysto amba waxaad qabanaysaa aad garanayso malaha 6 bilood 7 bilood waxa qaadatay oo waqtiga loogu talagalay diiwaan gelinta moron siyaasi oo lagu murmaayo yaa commissioner noqonaya ama imisa ayuu xisbi hebel helaya imisa madaxweynuhu magacaabaya imisa guurtidu magacaabaysa haddana waxa ka dambeysay in 2 nin oo kamid ah 2 nin ee guurtidu ay soo magacaawday ay baarlamaanku diideen oo moron dheer iyo marar badan lagu celceliyo ay ka dhalatay oo waqti badan iyaduna lumisay anigu waxaan ahaa raggaa la diiday 2 nin ee la diiday baan kamid ahaa raggii lagu soo bedelay markii dambe waqti badan baa halkaa ku lumay Soomaaliland caan bay ku noqotay in ay muddo badan markii wax la isku qabto si sharaf leh ugu dambeyn ay ku dhamaato wixii la doonaba laga hadlo laakiin dawladda alka ka jirta wali dadweynaha leh wali ma yeelanin madaxdu alkan dawladda ka jirta wali dadweynaha iskale maadaama ay dadweynuhu leeyihiin wali oo ownership uu dadweynaha yahay mar walba madaxdu waxay ku ixtiraameen wax kasta isku hayaan inay garashada la yimaadaan inay ka heshiyaan laakiin yaan la oran maxay dib u dhacayaan wax walba waa qabiyo hay'adaheenu waa qabiyo aqoonteenu waa qabiyo dhaqaalaheenu waa qabiyo dhaqankeena markaynu soo guurnay waa qabiyo marka ummad waxeedoo dhanba qabiyihiin ma dhici karto inay dib u dhacimo waayo
maxay ahaayeen caqabadihii lagala kulmay dhinaca maalgelinta qalabaynta hawsha diiwaangelinta waxaa jira haddaad daar maalgelinayso oo doonayso inaad daar dhisato waxaad jeceshay daartaasi aad maalgelinaysaa ama mashruuca aad maalgelinaysaa inuu si wanaagsan u hirgalo oo uu noqdo mid lacagtii la geliyay ay ka muuqato ayaad doonaysaa adduunka ma jiro cid wax maalgelisa oo waxa ay maalgelinayso aan in lagu guulaysto doonaynin ma jirto caalamku wixii ayna siiyeen waxa ay doonayaan waxa weeyaan inaynu ku guulaysano ujeedadiisii layskama bixiyo lacagtaasi waxay leedahay shuruudo lagu bixiyo haddaad shuruudaha lagu bixiyo ka soo bixi weydo dee markaa lacagtii la bixin maayo waxyaalo caqabo ku noqday soo deyntii lacagta ayaa jiray sababo walba ha ahaadaan axsaabta saddexda xisbi qaran oo inta badan maroo badan ka dhex mataqaanaa kaba abuurmay awgeed bay lacagtu mar walba horta caqabadihii koowaad ee dib u dhaca ku sameeyay diiwaangelinta ka mid ahaayeen laakiin xukuumadduna diyaar ba u ahayd 25% inay bixiso deeq bixiyaashuna diyaar bay u ahaayeen xeerka waxa ku taala in bil ilaa 3 bilood dalka lagu diiwaangeliyo ayaa xeerka ku taala dabadna markii ay ahayd bil ilaa 3 bilood in la diiwaangeliyo commissionka iyo donorsku waxay isla qaateen in dalka bil lagu diiwaangeliyo oo gobol walba 5 cisho 5 days la diiwaangeliyo tii waxay keentay in muran bilaabmo haddana oo xisbiyadii iyo dadweynihii iyo golayaashii wixii haddana la yidhaahdo sidaaba 5 cisho gobolkii loogu diiwaangelin karaya taasina mudday jiitamaysay marka waxa weeyaan donorski ayagu dhaqaalihii ay bixinayeen waxay doonayeen sida ugu dhaqaalaha yar ee kharashka ugu yaraanaya in wixii hawsh ku socoto qoladii deeq bixiyaashu waxay yidhaahdeen war waxaad doonaysiin diiwaangelin inaad geshiin lacag baad doonaysiin lacagta maxaanu ku bixinaa modelkii mee nidaam ku noqonaya ma warqadii qalin baad ku qoraysaan ma computer uu noqonayaa ma satellite baad u baahan tihiin oo ma garanaysaa isku xidhaayo waxoo dhan dee budgetkeena miisaaniyad buu u baahan yahay miisaaniyad diiwaangelin iyo doorasho soo qadima miisaaniyadiina waqti bay qaadatay runtii mar walbana Nairobi 2 jeer baan u tagnay anagoo daafacayna miisaaniyada marka hore aanu tagnay ayaan modelkii iyo wixii oo dhan sifaynay nidaamkaanu u dejisanay waxa in gobol walba lagu tiriyo lagu hubiyo inaynay dhicin wax dad isku noqnoqday bahalka doorashadu waxa loogu talagalay inay ka dhaxdo 6 gobol hore oo ka kooban 3 degmo marka 3 degmo iyo goobaheeda sahminteeda waxa iska la mataqaanaa komishiga qaranka wasaaradda arrimaha guduhuna waxay leedahay nabadgelyadooda inay sugto sahmintooda marka goobihii hore doorashadu ka dhacday ay komishigu u abrufkariyeen inay tan ka dhacdo oo wax cusub aan lagu darin wasaaraduna way la qaadatay marka waxay ka dhacsay 6 gobol hore iyo 3 degmo iyadoo halka ay taagantaba waqti ciidanku galay sanadka hore waa kii Delas Caanood qabtay oo marka hore Puntland gacanta ugu jirtay Delas Caanood markii ciidankeenu gaadhay dhul badan oo aanay doorashooyinkoodii hore ka dhicin ayaa inoo suura gashay inaynu markaa diiwaangelinta ka samayn karno marka halka waxa la yidhi dhulkan aynu gacanta ku qabanay iyo dhul kale oo nabad oo sanaag bariya diiwaangelinta lagu daro in badan bay jiitantay donorski waxay yidhaaheen anagu bixin mayna lacagtaas oo goobihii hore ee 985 ka ahaa uun baanu anagu ee nabad ahaa ayaanu samaynaynaa anagu kharashkooda bixinayna waxa markaa dawladdu ay ogolaatay in iyadu kharashka dheeraadka ah ay la baxdo arrimihii farsamada ee tiimiskii ka shaqaynayay diiwaangelintana markaasi loo diro dhulkaasi halkaas waxaa ku joogsaday shaqadii iyo heshiiskii ay wada galeen markii hore hay-adda iyo commissionku ay wada galeen maadaama commissionkii iyo dawladdii wada jira ay yidhaaheen waxaanu doonaynaa inaanu kordhino goobihii diiwaangelinta laga sameynayay maxay ahayd sababta loo asaasay guddiga farsamada ee diiwaangelinta guddiga